عليكم ورحمة الله وبركاته. Registrars Ampalio. Respondere a Registros. Ampalio Somaliland National Day. Maanta waxa weeyaan maalintii qarannimadeena jamhuuriyadda Somaliland. Farxad weyn baan ii tahay caawa in aan ursaalo soo maray oo isagoo joogay oo caawa dadka soo joogo farxad gaar ah ay tahay gudoomaan. waxaan kaloo jecelahay halkan dadkii dhawaan baan ka yimi ixtiraam baan idinka sidaa xukuumaddii oo hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed aad iyo aad baan ku salaamayaa iyo dhammaan qarankeennii oo dhan salaam baan idinka sidaa dalkeennii aad bay xaaladiisu u fiican tahay wax kastoo doorasho oo soo dhacday wax kastoo soo marayba maanta maalin aynu ka wanaagsannahay ma jirto dalkeennina gacmaha is wada haystaan haddaynu qurba joognahay maxaa inaga inoo balana inaynu gacmaha isqabsanno inaynu mid noqonno waayo Somaliland waa madaxweynihii lixaad baynu maraynaa Cabdiraxmaan baa ka kow ahaa waxaa ku jiray ciyaar baa laba ahaa ciyaaraa saddex ahaa siiraaya maxaste afar ahaa Musa shay kuhi maanta waa Cabdiraxmaan xaggay ka dhacdaa adduunyada geeska Afrika waanu Somaliland oo dadku fartooda ay ku doortaan cidda ay doonayaan markaasi dadka noocaas ayaynu ka nimi dadka noocaas ayaynu ku abtirsanaa shee Somaliland baynu nahay cid kale ma lihin soo saamaha haddii ay wax jireen haddii aynu inagu kala sheegeen madaxweynayaasha Muuse maalintuu kursiga koray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland buu ahaa madaxweynayaashii ka horreeyna reer Somaliland baa ahayn madaxweyne Cabdiraxmaanna maanta inaynu garabkiisa istaagno oo wixii hawle u taala aan la garab qabanno ayaan ilaahay idinkaba idinka maganahay idinkana idinka reer Isrosow inaad u midowdaan oo aynaan dhegaysanin nin YouTuber ah oo doonaya inta qof ay ku daawata oo lacag ku helo oo qarankeena ku baabiya sidii maalin saddexaadkii ka dhacday magaalada Burco ee labada dhalinyaradu inay ka dhinteen 3 kun laga dhaawacay madaxweynuhu ka hadlayay inuu taas ka ilaalino oo aynu u midowno in aynu dadkeena haddaynu qurba joognahay waxaynu kari karayno amba kaymo ceerigaabo amba burca ka kaalay amba laascaano kaymo amba reerkiisa baa ahaw amba galbeedka Somaliland baa ahaw meesha doonta ka kaalay qofku wuxuu waxtari karaa dadkiisa markuu xitaa qof xanuunsanaya oo wax yar karo baahi badan baa dadkeennii taala maanta Yurubeynu joognaa Yurubta qofka de waxaa u bilaasha oo aan lacag laga qaadin waa hawada uu neefsanayo dowladdeena resourcekeena aynu ku shaqaysanaa ee Somaliland oo dhan dhaqaalaha magaalada Westeros ayaa ku laablaabmaa ee degihiiseeda ku leh qof waxaana 7 milyan dhaqaalaheena wuxuu ku baxaa 50% security oo maalin kasta meel baa laga soo qaybinayaa intii dalkeena ku horumarinahay ayaa waxaa loo baxayaa halkaan afar reer baa ka hadlay halkaan oday Suudaana ka qaybiyey halkaan reer kale lagu dejinayaa markaa walaalayaal waxaan jecelahay maanta haddaynu reer Suudanahay waan aaminsanahay dadka Suudaan inuu qayb weyn ka ahaa oralihii oo dadku laba dhinac la ahaa maanta wuxuu baahnay mid noqono unity Somaliland inuu hal noqono markaa ballantaasi ma isla galaa ballantaa ma isla galaayo dadkeena tabdiiq ma u noqonaa ma isku wada nimaadaa anigana sharaf bay ii tahay maanta reer Suudaan oo qulubtoodu iswada leedahay oo meel u wada jeedo oo dalkeennii mid u nahay abtirsiinteena noqoto anu reer Burcaanahay anu reer Hargeysanahay anu reer Galbeedanahay anu reer Ceelgaabanahay inaan abtirsiin kala yeelanin intii Suudaan iyo intii ka timaada si aad reer Isroos u tihiin halkaan ay noqoto oo aynaan qoqob iyo reero oo waxayna baabiinayaan
midna waa idin sheegayayo Somaliland hadday isku duuban tahay ilaahay mooye yaqiin marko wax badan oo inaga xumaaday oo ina soo maray inaga tafaraaruqeeni ayay ku yimaadeen laakiin maanta waxa leena cadowga mid baan nahay soo maaha waan soo toosay meel baan wada soconaa marka wala hambalyo tikeli ee ku dardaaraya oo iyo baadii laydiyada yaday kala qaybin ya oday siyaasiya oo aniga oo kala oo kursi doonaya abba waddanka u bala joogay noloshii ka dhacay waddankan uu joogay yurmaha qaabisirahaate la qabsay kari waayay intuu WhatsApp furto uu barnaamij halkaa ka sameeyo oo carruurteena maxay markaa wax kale ugu beero taa inaynu iska ilaalino dadkeena u midowno Somaliland ha noolaato reer Soomaaliya ha noolaadaan aad iyo aad baan salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh